بسم الله الرحمن الرحيم عاوي تاريخ تهي صدنك بيشة تمناد لبدا كون يسقالي طبعا مدحوينها الدولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني ayaa ka qayb galay xaflad casho ah oo loogu sameeyay beerta dalxiiska ku taala banaanka magaalada Qardho madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni waxa kulankan casho sharafta ah ee loogu sameeyay qaybta dhaqanka ee beerta dalxiiska ee Qardho kala qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dawladda waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Dhaban Cad wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Puntland oo ay kamid yihiin xildhibaan Axmed Daad Jaamac Diiriye xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab xildhibaan Maxamuud Axmed Caalim iyo xildhibaan Xuseen Yaasiin Xaaji kulankan casho sharafta ah waxa madaxda uu hogaaminayo madaxweyne Deni lagu soo dhaweeyay agab dhaqameed iyo cunto dhaqameed oo uu ku dhex cunteeyay qaybta dhaqanka ee beerta dalxiiska waxaana kulanka casho sharafta soo diyaariyay ganacsade Daahir Cabdullaahi Kilwe oo kamid ah ganacsada reer Puntland madaxweyne Deni waxa uu dhiirigeliyay oo uu bogaadiyay dhalinyarada ka shaqeysay maalgashigan cusub iyo horumarinta ganacsiga ee gobolka waxaana uu dhiirigeliyay agab dhaqameedka quruxda badan ee dhaqanka Soomaaliyeed halkan lagu soo bandhigay iyo cunto dhaqameedka la siiyay isagoo bogaadiyay dhalinyaradii hawlahaasi ka shaqeysay aad iyo aad buu mahadsantiin